hadallada barasaabkii wasiirku waxay ahaayeen hadallo ka soo baxay saraakiil xukuumadda ka tirsan marka waxa laga soo qaaday inay yihiin mowqifka siyaasiga ee xukuumadda ee ku aadan gobolada bariga Soomaaliland waxayna halis ku yihiin horumarka goboladaas ee xagga ammaanka marka wasiirka ammaanka uu qaabilsan dalku yiraahdo goboladaasi waa aafo hay'adaha caalamiga ee maalgashada midkoodna ma tagayaan meel aafa ah oo mashaakil lagu sheego waxa laga soo bedelay tiin baro gobol dhibaato badan oo aafa ah gobol dhibaato badan ayuu ka yimi laakiin gobol fiican uu soo galay marka si weyn u saameynaysa ka horumarkii bulshada mas'uuliyadda dawladda ay kolka inay gobolada wixii dhibaato jira ka qabato maamul xumo weyn baa gobolada ka jirtay eedeedana xukuumadda ale maalmo ka hor waxa saasi dhow hadlay mas'uul ka tirsan xukuumadda isaguna gobolka Saraar saas oo kale uga dhigay meel fog oo qofka la geeyay qof maaragtay dhibaato mutaysto kale hadalkiisu weeyay marka wax way wax systematic ah socda oo lagu hagaajinayo gobolada bariga xukuumaddiina ka imanaya anigu ma arko hadal laba qof ka yimi waxaan arkaa hadal xukuumadeedii wasiirku waa wasiirka amniga oo qaabilsan dalka wasiirka xogeenku xukuumadda golihiisa wasiiradu ka tirsan yahay xukuumaddu iskama fogeynin hadalku uu yiraahdo waa hadal xukuumadda tiriye waxaan ka soo cararay wax walba xamar loo doonto haddana qofka la ascaanada jooga ka ceergaaba jooga ka baran jooga iyo ka buuhod la jooga waxa la leeyahay qasab ku kaale Hargeysa adeeg dawladeed bixin karto haddana qofka ku mushaar qaato deegaankii jooga si isu geli kartaa kii wasiirka ahaa shaqadiisa ahaydna inuu ID kaadhada gaarsiiyay dadka dawladnimada gaarsiiyay booliis liga booliiska furaan wuxuu leeyahay waa masiibo meesha waa aafo kolka xitaa deeqdii ummadii iimaanaysa ka hortaagay maalgashigii buu ka hortaagay qofkii maalgashiga ma meel aafo ah oo dagaal ka socdo la leeyahay waa aafo waa catastrophe ba dadka loogu tirmay af Ingiriis yaa tagay adigu ma tagi ma tagis maalin dhaweyto dhowr cisho ka hor wasiirka waxbarashada gobolka joogay ilmaha yar buu su'aal weydiiyay wuxuu ku yiri maxaad wax u baran weyn ilmaha yar waxa markii la eegay waxa la yiri meesha ugu dhow 10 kilomitir 30 kilomitir 60 kilomitir saddex jiho ayay u kala jiraan goobaha waxbarasho dawladdii goob waxbarasho ilmaha yar u goyn weyd hadhow ilmaha yar bay ku canaanaysaa ku caayisa mas'uuliyadda mas'uuliyaddeeda inay goobta wax gabageyso tusaale inay degmada Garadag oo koonaheeda u sheegay wax 200 kilomitir u jirta caasimadda Ceergaabo maxkamadda gobolka ugu dhow waxay 200 kilomitir labada qof ee dhulka ku murmay xagee isla tagayaan meel isla tagayaan ma haystaan saldhigyo booliis ma jiro gobolka intii soo badan saldhigyada booliis way ka fayin markaad magaalada Ceelfin ka qaadid la Ceergaabo 90 kilomitir baa isu jiraan dhinaceeda barid marka raacdid 90 kilomitir hal saldhig kuma yaalo oo booliis ah dadka jooga markay isku qabtaan maxay ku kala baxayaan taasaa dhibaatada dagaalada qabiilada iyo colaadaha keenaysa ma mas'uuliyad darro dawladeed baa mise waa shacabku leeyahay dadka gobolada dhibaato far badan baa haysta gobolada dhan waa soo maray dib weyn baa haysta xagga horumarka xagga adeegyada dawladeed baa ka haysta ummadda wax ka filanayaan xukuumadda leh waa meel aafa ah oo masiibo ah oo dhibaato ka taagan ee dadka insaltka iyo caayida u geysanaysa haddana cadeynteedii la hayo in goobta waxbarasho 20 kilomitir 30 kilomitir u jirto iyadii goobta waxbarasho u geyn kara laada marka dadka gobolada waxay isweydiiyaan oo tashadaan baan weydiin lahaa Soomaaliland sababtii ugu weyneed goonistaag loogu soo noqday maxay ahayd in adeegga dawladeed dadka ku dhawaado maanta ID kaarka dhalashada muwaadinimada cadeynaya Hargeysa yaala database-kiisa qofka baasaboorka u baahda maanta waa inuu Hargeysa yimaada wax kale iska daayo waraaqdeeda laysanka wada marista qofka driving license leeyahay qofka gaadiidka wada la siinayo imaanta la bedelayo Ceergaabo kama bedelan kartid Hargeysa timaad aniga aabahay Hargeysa u yimi soo driving license soo bedesho marka dadka maxaad ku eedaynaysaa dawladnimada meeday kumee qofka adeegii dawladeedba lama joogo ma arko haddana saas Soomaaliland ku yahay dalkiisa ku difaacda maalin walba dawladdu iyadu dawladnimada la dareerinay dawladnimada ummadda ha gaarsiiso adeeg wanaagsan ugu shaqeyso neutral dawladdu ha noqoto dhexdhexaad gobolada ha noqoto wasiirku ummadda ilaahay oo dhan buu wasiiru yahay markuu gobolada qaar hiifayo yuu wasiiru yahay ma deegaan gaar wasiiru yahay si wasiiru xukuumadda magacaabatay cabinetka ku jira golaha wasiirada ku jira afku nugula hadlay af shakhsi ma qof shakhsi suuqa jooga hadlay ma hadla waxa hadlay shakhsi madaxweynuhu magacaawday ammaanka dalka u dirtay